inaanay burco amni ahayn soo cadday. Haddii aad soo cadday weydo waxaan kuu ballan qaadayaa inaadan burco intaad nooshahay soo gelin. Saacadda laga bilaabo ma soo geli karo Maxamed Habiib iyo gobolada bariga toona maba iman karo. Isagoo xildhibaanana ma iman karo, isagoo aan xildhibaan ahayna maba iman karo. Waa mamnuuc qalin casban saaka laga bilaabo ka saar. afayene maxamed cawil si arag maanta waxaa hadlay wasiirka gaashaandhigga Somaliland waxa uu sheegay inuu qarameynayo ciidamada madaniga oo ku daray ciidamada qaranka Somaliland hadalka wasiirka ka soo yeedhay bal ka warrama. Waa la qarameynayaa ciidanka madaniga dhamaantiiba waa la qarameynayaa ciidamada qarankeena ku biirayaan iminkan way ku jiraan midii way dhinaca taagan yihiin wayna ku biirayaan haye wax diyaaraba iyaga la hayaa iminka dad diyaaraba iyaga la hayaa haye waa la qarameynayaa diyaar bay u yihiin in la qarameeyo iyagoo aan qaramaysnayn bay dalkooda dhowr sano difaacayeen haddii maanta la qarameeyana dalkoodii bay difaacayaan oo ka mid noqonayaan xeryahoodana tababarka looga furayaa bartoodana lagu haynaya haye nin walibana deegaankiisa uu joogayaa ciidanka ahaanaya qaran Maxamed Habiib aan goorta yar ka biqlayso in Habiib hadallo badan oo qadafiyo badan oo meel ka dhac badan ayaan ku hayaa ciidanka qaranka uu sheegayo maalintii 25kii November hadalladii uu lahaa way duuban yihiin oo wakiil raalli baan ka ahayn ciidanka qaranku jabo waxa uu leeyahay ciidanka qaranka ayuu hadal hayaa horta Maxamed Habiib waxaan leeyahay beesha Liyaa Samaroon Saciid waa beel aan jecelahay waa beel sharaf iyo karaamo aan hayo waa beel aan aad iyo aad u ixtiraamo waxaan jecelahay markaa inaanan Maxamed Habiib oo kale u soo qaadan Samaroon Saciid laakiin isaga jawaabtiisa waan siinayaa Maxamed Habiib oo marka hore khalad badan ayaa ka tagay neer baa tahay dhalinyaro tahay siyaasaddan inuu dhalinyaro baa tahay marka hore ciidanka qarankuna kaama amaan helo ciidanka ciidan beeleedkuna kaama amaan helo madaxweynuhuna kaama amaan helo dalka waxaad ka samaysay waad ogtahay waad ku nabad iyo caalamaashay edeb darrada iyo gefka iyo meel ka dhaca aad samayso waxa lagu tixgelinayaa beesha aad ka soo jeedo ayaa lagu tixgelinayaa waxaan kuu sheegayaa arrintaa inaanay burco amni ahayn soo cadday. Haddii aad soo cadday weydo waxaan kuu ballan qaadayaa inaadan burco intaad nooshahay soo gelin. Saacadda laga bilaabo ma soo geli karo Maxamed Habiib iyo gobolada bariga toona maba iman karo. Isagoo xildhibaanana ma iman karo, isagoo aan xildhibaan ahayna maba iman karo. Waa mamnuuc qalin casban saaka laga bilaabo ka saar. Sidaasaan kaga joojiyay. Waxaan kaloo ka hadlayaa Xamse Cawkow anigoo ku hadlayaa afka beelaha reer Sicsaxaaq anigoo tixgelinaya dhaqanka anigoo tixgelinaya xaaladaha maanta dalku ku jiro iyo xukuumadda cusub waxaan marka hore u sheegayaa beelaha reer Sicsaxaaq ama xukuumadda Somaliland u sheegayaa Ceeri Gaabo gobolka la yiraahdo baan ka hadlayaa jiita deegaanka Qurlugudee aan ku suganahay caawana waan ka hadlayaa dawacaleyna waan ka hadlayaa beesha Arabna waan ka hadlayaa arrintii ku dhacday dagaalkii dawacaley kaga dhacday aan kugu horeeyay Ceeri Gaabo haddaad maqasho Ceeri Gaabo marka hore bishii 12aad bay xorowday dhowr iyo 30 sanadood Somaliland jirtay intii ka horeysay waxay ahayd divided by 2 waxay Ceeri Gaabo xorriyad qaadatay bisha 12aad niman u halaya artigii baan arkayo le artigii la soo celiyay ama Ceeri Gaabo ha joogeen ama Somaliland kale ha joogeen bikii hati jacayl hayo halkay joogaan baad ugu tigaysaa Ceeri Gaabo kuma soo noqonayaan waxaan waliba qolada deegaanka iyo ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland u sheegaya laba mas'uul bay ku soo geli karaan Ceeri Gaabo nimanka la sheegaya masalada koowaad iyagoo calanka Somaliland qoorta ku soo xidho dhalo daakaayo sida qoorta oo soo geli kara masalada labaadna waa iyagoo xiniye iska taabto dagaal dambe huliya way soo geli karaan laakiin kuma soo geli karaan nabadee kaalay soo dhawaadey kuma soo geli karaan dibna loo hoosaasin maayo dadka Ceeri Gaabo kuma taa waxaan ku dhaafayaa Ceeri Gaabo
dib looma hoosaasinayo waxaan u gudbayaa jiida qurlug ciidamada yada hadday yihiin ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo hadday yihiin ciidamada madaniga ama G36 soo noqdeen ama aan noqdeen SSB way mahadsan yihiin difaacooda ha adkaysteen iyaguna difaacooda waxaan kaloo ka hadlayaa meesha la yiraahdo xaaladii dawlad ka dhacday waxay ku dhacday beesha Arab ay ku horeysay beelaha kale way ka qayb qaateen ee deegaanka ah waa loo gurmaday waa loo tagay waana loo gurmadayaa reerka Arab la yiraahdo waxaan leeyahay shirka ka dhacay marka hore awaare ay wateen niman gaari ay wateen hakuniyo jabina walaalihiin way idin dhinac taagan yihiin way idin garab taagan yihiin way idin la dhimanayaan walaalihiin mar walba wixii Arab wixii ilxun ku eega labada indhood waan ku eegayna waana lagu eegayay isaaqno kamidaysiin isaaq waa laba qaybood waa qayb galbeed joogta iyo qayb bari joogta wixii bari joogana reer kasta ha noqdeen waxa haysta dagaalka bari iyo difaaca qarannimada wixii galbeed joogana waxa haysta difaaca beelaha Arab lagu difaacay iyo deegaanada meeshan la yiraahdo kilalka qaybta aynu ka degno ayaa lagu difaacayaa cid kasta oo nala dareena ama Arab la dareena ama anaga nala dareena waanu mahad celinayaa waxaan kale u sheegayaa nimanka madax dhaqameedka ah ee maalin walba ay yiraahdaan nabad baanu haynaa ama awaare ha ka hadleen ama hargeysa ha ka hadleen nabadda marka hore waa shay caadi ah waa shay ummaddu ku wada nooshahay waa shay aan laga maarmayn siyaasaddeena iyo nolosheena iyo danaheena ku jira laakiin may muuqan markay muuqato nabadda waa la qaadanayaa ragga afdhuubyaalaynayaa ee ordaya nabadda aan bislayna ee yaxyacoodka doonaya inay kaga qaadaanna cidnaba kuma matelaan anaa afhayeenkii guud ee beesha reer Sheekh Isxaaqa anigaa ka hadlaya markay nabaddu muuqatana anaa ka hadlaya inta culaadu jirtana anigaa ka hadlaya nin walba oo sultaan sheeganaya nin kasta oo caaqil sheeganaya nin kasta oo reer oday u ah shaqadiisa ku ekaado wadanku wuxuu ku jira xaalad adag buu ku jira waa la samata bixinayaa waa la difaacayaa cidna looga amar qaadan maayo nimanka aan isfahmayno ee madax dhaqameedka sheegta ee laga maamulo Muqdishona ha ka daayaan wariyaha reerka agardaamada ha ka daayaan wariyaha reerka dhibaatada wariyaha ka daay Somaliland bay agardaamo ku haleeyeen Somaliland bay adab daro iyo khalin ku abuureen iminkan ayaanay beesha reer Sheekh Isxaaq khalkhal iyo ku abuureen dhibaato ha ka daayaan reerka wariyaha dhibaatada hana kala bixeen hadday joogi waayaan talaabo sharciga baa laga qaadi doonaa nin waliba bartuu joogo ka masaajidka ka hadlaya waa nuug sheekada ku hadlana waa nuugne maxaa kuwa masaajidada ay habeenkii dhadaan hadla oo khudbadaha jimcaha ka hadla waa nuugne nin hadday joojin waayaan arrinta oo ay ka bixi waayaan nimanka madax dhaqameedka sheeganaya nin waliba halku ku nool yahay waa loogiya talaabo sharciga waafaqsan ma laga qaadi doonaa